Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhegaystayaal daawadayaal ku soo dhowaada mar kale iyo channelkeenii kororso aqoon. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe garay si aad u aragto wax alla wixii cusub ee la soo geliyo channelkan. Aqoon kororso ama kororso aqoon channel waxaan ku soo gudbinaynaa wax alla wixii anfaca bulshada iyo ardada Soomaaliyeed haddii ay ahaan lahayd aqoon diini iyo maadi intaba. Waxaynu soo gaarnay casharkeenii saddexaad ee chemistry-ga Foundation Chemistry 1 chapter-ka koowaad Introduction to Chemistry, darsigii saddexaad oo ah The Role of Chemistry. Kaalinta uu chemistry-ga uu kaga jiro aqoonta ama doorka uu ciyaaro chemistry-ga. Ilaa 4 qodob oo waaweyn baynu ku soo koobaynaa kaalinta uu geysto ama doorka weyn ee uu kaga jiro chemistry-ga nolosha iyo horumarka adduunyada intaba. It has led to the development of fabrics such as nylon, rayon, polyester, and dacron. Chemistry-ga wuxuu horokacay ama uu hogaamiyey horumarka ee dumaha, waxyaabaha dumaha la isku yiraahdo fabricska sida midda laylonka iyo midda xariirta iyo duntan oo polyesterka la yiraahdo dadku ay sanceeyaan oo dharka laga sameeyo iyo waxyaabaha barkimaha la geliyo dacronka la yiraahdo. waxyaabahaas oo dhan inay horumaraan waxa weeyaan hor u kacay ama horumariyey chemistry-ga. sida la wada ogyahay waxaas oo dhan waxay ka yimaadaan in la farsameeyo bani aadamka uu farsameeyo qaab organic ahaan bay u abuuran yihiin. marka waxaa laga dhigayaa wax la isticmaali karo oo bani aadamka uu ka faa'iideysan karo. haddii marka chemistry-ga aqoontiisii la helay waxay fududaatay waxyaabaha fabricska ah ee dumaha, hadday ahaan lahayd laylonka, hadday ahaan lahayd xariir gacmeedka, hadday ahaan lahayd duntan oo dadku ay gacantooda ku sameeyaan oo dharka laga sameeyo, hadday ahaan lahayd waxyaabaha barkimaha lagu cubo oo waxa weeyaan lagu buuxiyo. waxaasoo dhan chemistry-ga ayaa ogolaaday oo laga soo bedelay xaaladoodii asalka ahaayeen organic ay ahaayeen oo laga dhigay xaalad waxa weeyaan oo dadku isticmaali karaan. way badan yihiin waxyaabahaas. xargaha ka mid ah, shabaagadaha ka mid ah ama shabaqyada kalluumaysatadu isticmaalaan, marakaneecooyinka ayaa ka mid ah ama sinyeeriga saa u taqaan, dharka ayaa ka mid ah, teendhooyinka ayaa ka mid ah iyo waxyaabo badan oo waxa weeyaan waxtar leh oo warshaduhu ay soo saarayaan. waxaasoo dhan waxay ku yimaadeen chemistry-ga iyo kuwo badan oo aad taqaan. 2 kaalinta uu waxa weeyaan chemistry-ga uu kaga jiro aqoonta ama nolosha bani aadamka waxaa ka mid ah knowledge of chemistry has helped in finding solutions to food problems. aqoonta chemistry-ga waxay caawiday ama wax weyn ka geysatay
in la xaliyo dhibaatooyinka cunnada. tusaale maalan si loo soo saaro miro ama waxa weeyaan iniin oo aad iyo aad waxa weeyaan wax u dhalaysa, wax soo saarkeedu badan yahay, sida bariiska oo kale, galleyda oo kale, muuska oo kale, qamadiga oo kale, iyo waxyaabaha kale oo dalagyada la beerta ah. waxaasoo dhan waxa weeyaan chemistry wuxuu caawiyey in la horumariyo oo abuurka in la horumariyo, oo abuurkii ama iniintii la beerayey ayaa waxa weeyaan la ogaanayaa by chemistry lagu ogaanayaa imisay ku dhali kartaa, oo cudurrada mu adkeysan kartaa, mu u baahan tahay cayayaan dile, xilliyada la beero, waxyaabahaasoo dhan daawooyinka waxa weeyaan loo isticmaalo fertilizer ahaan, loo isticmaalo bacrimin ahaan, inay u adkeysanayso oonka iyo yarida, sida cudurrada isaga difaacayso, xilli hore in la goosan karo. waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabo waxa weeyaan uu chemistrygu caawiye wey. sidoo kale wuxuu ogolaaday chemistryga in la soo saaro kiimikooyin oo caws dilayaal ah, fanga dilayaal ah, cayayaan dilayaal ah, dulin dilayaal ah, oo xayawaanada iyo dhirtaba waxa weeyaan lagu maareeyo ayuu waxa weeyaan uu chemistrygu ogolaaday. waxyaabaha chemistrygu waxa weeyaan uu caawiyey waxaa kaloo ka mid ah, wuxuu ogolaaday in la soo saaro soil fertilizers, bacrimiyaal oo carada lagu bacrimiyo. wuxuu kaloo horumariyey chemistryga habab wanaagsan ee cuntada iyo waxa weeye loo keydiyo ayuu waxa weeyaan chemistrygu u horumariyey. qodobka saddexaad ee kaalinta chemistryga uu kaga jiro nolosha bani aadanka ama horumarka waxa weeyaan chemists are ever discovering new drugs to improve human health and the health of animals and plants. chemistsku ama chemistry-yahanadu weligoodba waxay soo saarayeen ilaa haddeerna ay soo saarayaan dawooyinkii kore loogu qaadi lahaa ama sare loogu qaadi lahaa caafimaadka bani aadanka iyo caafimaadka xayawaanada iyo dhirta ay ku howlan yihiin mar kasto. haddeer chemistrydu waxay ku howlan yihiin in ay soo saaraan drugs wax ku ool ah oo waxa weeyaan lagu daweeyo malaariyada, HIV AIDSka, eboolaha, SARSka cudurka la yiraahdo, kansarka iyo kuwa kale oo badan oo aan hore u soo sheegnay, sida waxa weeyaan coronavirus disease oo kale way ku howlan yihiin. qodobka afraad, chemistry offers a wide range of career opportunities such as chemical engineering, biochemistry, medicine, pharmacy, textile production, nutritional science, and nuclear physics, among others. wuxuu yidhi qodobka afraad, chemistrygu wuxuu bixinayaa fursado waaweyn oo waxa weeya shaqo ah ayaa chemistryga laga dhex helaa. oo qofka markuu chemistryga uu barto waxyaabo badan oo shaqooyin ah ayaa chemistryga hoos imaanaya. faculties fara badan oo jaamacadaha waxa weeyaan lagu qaato ayaa chemistryga uu ku fududeynaya in aad ku takhasusto, hadhowna waxa weeyaan aad xirfado aad ka abuurato oo jaanisyo ah
sida waxa weeyaan chemical engineering ayaa ka mid ah, biochemistry ayaa ka mid ah, medicine ayaa ka mid ah, pharmacy ayaa ka mid ah, textile production waa farsamaynta dharka ayaa ka mid ah, nutritional sciences sayniska ku saabsan nafaqaynta waa chemistryga ayaa waxa weeyaan uu ku horkacayaa in aad waxa weeyaan aad fursadahaas iyo takhasuskaas aad hesho. nuclear physicska ka mid ah iyo kuwa kale oo badan. markaynu soo koobno kaalinta waxa weeyaan uu chemistryga kaga jiro ama doorka uu ciyaaro waxa weeyaan qodobka koowaad wuxuu horokacay ama waxa weeyaan uu hogaamiyey in la hormariyo waxyaabaha dumaha laga sameeyo, isagaa waxa weeyaan hormariyay. haddaan chemistry jiri lahayn lagama faa'iideysan lahayn, laakiin aqoontii looga faa'iideysanayo waxyaabahaas oo dhan chemistryga laga helay. that is why maanta warshaduhu ay ku tartamayaan inay soo saaraan dharka iyo wixii la mid ah. ta labaad oo ah aqoonta chemistryga ayaa waxay caawiday in la helo xal loo helo problemyada cuntada ku saabsan. oo awal waxay ahayd dalagii la beero cayayaan baa layn jiray, cayayaan dila looma heli jirin, waxyaaba fara badanoo problem baa jiri jiray, oonka iyo waxa weeyaan biyo yarida uma adkeysan jirin. marka hadda abuur waxaa la helayaa oo waqti dhow ama waqti waxa weeyaan fudud oo waxa weeyaan lagu goosanayo, biyahana u adkeysanaya ama biyo yarida u adkeysanaya, cuduradana oo adkeysi u leh. waxaas oo dhan chemistryga lagu helay. 3 chemistryinada waxay soo saarayaan mar walba caafimaadka dadka waxa weeyaan in la horumariyo ay ka shaqeynayaan si waxa weeyaan cudur kastoo soo siyaada waxa weeyaan dawadeedii loo helo. qodobka afraad ee kaalinta uu chemistryga geysto waxaa ka mid ah wuxuu siinayaa fursado badan oo dadku waxa weeyaan ay ku shaqeysan karaan ama takhasusad fara badan oo jaamacadaha ay ka heli karaan markii qof chemistryga uu barto, sida chemical engineering oo kale, biochemistry oo kale, medicine, pharmacy, textile production, farsamaynta dharka. inta kale waa la iska garanayaa: chemical engineering, biochemistry, medicine waa caafimaadka, pharmacy waa farmasiga, textile production waa farsamaynta dharka, nutritional science sayniska waxa weeyaan ka hadlaya nutritionka ama nafaqada, nuclear physics iyo physicska la yiraahdo. nuclear physicska isagana chemistryga ayaa waxa weeyaan aad u baahan tahay in aad wax ka ogaato. dhegeystayaal, daawadayaal, halkaas ayaan kusoo afmeerayaa darsigeenii maanta. sidaas iyo nabadgelyo ayaan idinkaga tegayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. fadlan subscribe garay oo nagu dhiirigeli inaan hore u soconno. waad mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.